iyadoo la isu diyaarinayo xuska 40 guuradii ka soo wareegtay hirgelintii farta Soomaaliga ayaa waxa xusid mudan inay dad badan ka diimoon yihiin halgankii iyo dadaalkii loo soo maray qorista farta Soomaaliga iyo urintii far Soomaaliyeed oo lagu qorayo xuruuf Laatiin ah. markaas munaasabada 40 guurada xuska hirgelinta 40 guurada farta Soomaaliga ayaa waxaan ka wareysan doonaa Dr. Martin Owen oo macallin ka ah School of Oriental and African Studies oo loo soo gaabiyo SOAS kana tirsan London University ahna meel lagu darso afafka iyo dhaqamada Afrikaanka iyo Aasiyaanka. Dr. Martin Owen waa madaxa waaxda luqadaha iyo dhaqanka ee Afrika, isla markaana waa barasare oo macallinka ah jaamacadda London University qaybtan SOAS kana dhiga luqadaha Soomaaliga iyo Amxaariga. Martin waa xeel dheere xagga luqadda Soomaaliga, dhaqanka iyo suugaanta, wuxuuna wax badan ka og yahay dadaaladii loo soo maray fartan Soomaaliga ee maanta aan qorno ee ku qoran Laatiinka. Dr. Martin markii ugu horeysa waa kaaga mahadcelinaynaa aqbalada aad naga aqbashay inaan wareyska kala yeelano arrintan af Soomaaliga iyo waqtiga aadna siisay. waxa weeyaan waxaan rabnaa inaad ku soo dhawaato programka waa xuska 40 guuradii hirgelintii farta Soomaaliga ma aha qoridii farta Soomaaliga waa hirgelintii farta Soomaaliga. bal markii ugu horeysa waxaad nooga warantaa taariikhda iskuulkan SOAS iyo xilligii ugu horeysay ee laga bilaabay farta Soomaaliga iyo in afka Soomaaliga lagu darso lagu barto laga dhigo iyo aduu xilliga aad ku soo biirtay. waad mahadsantahay Cabdulle. يعني SOAS وقيب كمدح جامعة لندن أفك الصومالية يعني دبنا هذه لو فرصة أفك الصومالية دبنا وحي قانان نكمل على جوش أنجيجفسكي هل كان بو كشقين شري SOAS وحو قالي سيديو أفرتنكي إساقو براني علمي قالوا قدها linguistics iyo phonetics ba yani waa cilmiga codaynta. marka wuxuu u yimid in uu diyaariyo yani aqoonta luqadaha si uu u tago yani meeshii ay gumaysan jireen Ingiriisku yani British Protectorate of Somaliland. marka halkaas buu tegay 1950 isaga iyo xaaskiisu wuxuu la shaqeeyay ninkii Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal waxaana yani maamulka yani Ingiriisku waxay rabeen in la diyaariyo far Soomaaliyeed si loo qori lahaa afka Soomaaliga. guushii Muuse Galaal way wada shaqeeyeen waxayna soo diyaariyeen far Laatiin ah. لكن لما هرجلين يعني ماموكو سو كوسو لابتي إنجليزكا حال كان وكسي شقين شري إلا إيو وحو حال جبو جلي إلا إيو وإحنا ملاني شن يسديتن كي ملاحظ أنا وحن بلابي إن حال كان شقي كوبي سجاشن كي ونسي dhigaya afka Soomaaliga waana baara afka iyo suugaantaba. marka waa taariikh yar afka Soomaaliga iyo SOAS. waa saas maxaad nooga sheegi kartaa dadaaladii kala duwanaa ee loo soo maray hirgelinta iyo qoridda farta Soomaaliga hadday jireen dad fara qoray xilliyadii ay qoreen farahoodii noocay ahaayeen haddii aad wax maaragtay ka haysid aad dadka u soo bandhigi kartid maxaad arrintaas iyada aad nooga sheegi kartaa taariikh ahaan xilliyadii iyo soo martay fartan Soomaaliga. waa taariikh dheer haddii loo fiirsado sida loo qoray afka Soomaaliga waxa la bilaabay qarnigii 19aad laakiin waxa qoray yani waqtigaas waxa qoray
وان كما قلي إن سومال إن يعني ودادو إني وح قرين فرتا عربي يجو قري عفر بيتك إيه وحير في سوماليغا داد كله أو ريال بيت وحي قرين بوجج مقالة دو كسب سنة أفك السوماليغا علمي أهان وحبيك قرين أما نحوها أما سوغانتا فر بيستعمالين لكن فر وجوني يعني قف كستا بي كقرين أفك السوماليغا تاس كدب وحلا جرانيا يعني ولا سي قري يعني علمي أهان يعني أنت بن ربع قلبيت كنت بدأ نو عثمان يوسف كندي وحو بلابي وحو سمي فرتيسا عثمانية اللي يراهدو مركا SYL Somali Youth League ويستعمالين فرتاس ولا فهري وحير لكن إن فرتي ما ينقن مد رسمي أما مد لو دورتي إن ملك للدوان إن استعماله سنان شيء يعني إنجليز كو وحير بين فر إن لسو دياريو إيو تالياني جو وحنا ملاني شن يو كونتون كي ملهاس وحي اسكو دين إني سو ديارين فر لقو قري لها في سوماليغا أن دبراني وي يقينين إن أي وح في عن إني نقندون سو إن لقرو فرتا سوما يعني أفكا سوماليغا 1960 كدب يعني كوني سقابو كولي لحتنكي ولا قرانيا يعني و مدح بنان اللي يحدون وسدس سوماليا مركي نقطي دل مدح بنان وحال الربي إن قرو في سوماليا ولا قرانيا وقتي هراء واحد شري يعني وحا وشقي ماملك دلك داد كيمد يعني كونفورتا ماشي تشوغن تاليانيغو إيو وخويغا ماشي تشوغن إنجليزكو so يعني إنكستو أي كودا حدلين في سوماليغا مركي وح قري الهاين وح يعني قار وحي قرين في تالياني قار وحي قرين في إنجليزي قار وحي قرين في عربي وحفينا لهيد إن أفكر أو ودني إن لقو خوري لها سلسلة ستارتيد وحلا ربي إن لدورتو فر قدي ولا سو ساري وحكا قيب قلي موسى قلال إيو شر جامع أحمد لور قفو كلا لحيو لحتنكي وحا يعني يونيسف هي أدى وقيب لان كمدح قرمان بلوغي ولا لشقايي قدي كاستا يعني قدي كاستا وحو دورتي فر لاتين لكن ولي وحا لما رسمي أهان أما دولة أهان لما دوران مد فر so يعني وتاريخ دار هذه لو فرصة سيدي لقو قري شري وقتي هراء تسالة عن راينيش يو كيرك يو دور خفو خلا راينيش من جرمل وننجمل ها وحسو ساري كن يو ساقال بقول بوق يعني وحبو كقري بوقي أف سومالي بو كقري أسوء سمي إساقا سمي ها مركا وحوي وقرالو أما تكست أف سومالي لو قري إيو أف جمل أوكي لكن كدو أن فرتا هذا أنقرنا وسيلات ها يعني فرتي ولا آخرين كرا ها لكن فرتي ويكدو انتهي فرت الاستعمال مانتا وفرقو هبي سقو مركا مورا بين إني نقطة فر رسمي وفر سي لو قري لها أف أن
la qorin waqtigaas oo ugu horeysayba waase waxaan ma la oran karaa waa ninkii ugu horeeyay oo isku dayay inuu Latin ku qoro inta la hayo ma garanayo si fiican wuu noqon karaa waa mid ka mid ah Ranish iyo mid kale oo Schleicher la yiraahdo wax buu ka qoray dhowr sano ka hor baan u maleynaya laakiin waa qarnigii sagaal iyo tobnaad dabeeqadiisa waa la bilaabay in wax la qoro marka nin kale oo Ingiriis ah oo isaguna ma jira wax ka qoray naxwaha Soomaaliga oo Kirk wuxuu qoray buug ku saabsan naxwaha Soomaaliga 1905 marka isaga wuxuu isticmaalay fartiisa isaga u gooni ah marka waa sida kuwii kale yani wuxuu rabay inuu qoro af aan la qorin hore loo qorin sidaas darteed wuxuu doortay yani xuruuf laakiin Latin buu ku qoray waay middan Andrew Whiskey iyo Musa isla qoreen ma ka duwan tahay fartan maanta qorro way ka duwan tahay waxa yani haddii loo fiirsado shibanayaasha dhinaca shaqalada waa isla mid يعني شغلة جابن و يعني عرف قرح بالاستعمال يو شغلة دير ولا لبن دام يو يو مركا لكن حد لو فرصدوش بنياشة ويكدونيين مركا حتى مثلا وحي كوخرين يعني H with a bar ما قريت و H أستان قوني يو عدا وحي كوخرين وحير يعني reverse يعني مد كرت يال maxaa kale da DH kuma qorin waxay qoreen sida da oo kale laakiin dhinaca hoose yani buu tagay iyo with yani waa so da with yani double marka fartan hadda aan qorno yaa qoray oo diyaariyay waxa diyaariyay sharic jaamac Ahmed oo yani سنديه اللحتمي يدي وحو دابعي يعني لحيو لحتنكي وحو دابعي ورقيس افتينك اقونت لي راهدو وحو وحو ديك سدي فرت و دياري سقا يعني وحي يعني فرتي والسماي وحا وقفي عن إن أنو واحد داراد كودرين حروفته. وأنا سمين حروف عصب. واسرة يعني حروف عصب مسمين يعني أستامو جار كمدرين وحو استعماله وكلية يعني حروفته. تابع عادي ما قريت. مركا يعني فرتيس وفر عاد بيوفي عنتي وأنا هذا لو فرصة يعني أفكا إيو سدي و حبايي قرست أفكا و يعني قرستي سو وي سهلنتهي وي عدتهي وي يعني علمي أهان عمل linguistics أهان وي وحبونتهي أفكا سوماليغا مركا إساقا سميي دابدين طبعا ولا دورتي لبي أواسداس لكن كهر أسوي وصو ساري أنت على لبي صدواتنكي على جارن لا لوري لحتنكي لوري لحتنكي بنملي وحد دابعي افتينك أقونته دور وسجوتا أصابها واسداس مركا وحو قري سوغان يعني قبيو بو قريم ورقيس يدي إيو ماهيو إيو شيكوين إيو يعني وحيابو كهلا مركا وعاد بو وقلت دالي إن لا أركو إن يعني أف سوماليغو إني نقون إنو نقون كرو يعني أف قران أو لا استعمالي كرا
marka wax ay kaga duwan tahay miyaa jirta midda 60kii oo kale 64 uu qorayo kale midda maanta la qorayo wax lagu kordhiyay markii 72kii markii la hirgelinayay ma wax laga bedelay baa jira mise fartaas uu xilliga qorayo iyo middan marka la hirgeliyay waa isku mid واسلمت ويضون وي واسلمت يعني هدي لا اخريو افتينك اقونته ولا قرنكرا ولا اخريكرا هدي لا يقانو يعني وحي يعني هدي لا قرنكرا فرتمانتا ولا اخريكرا وحي وقري لحي لحدنكي لحيو لحدنكي هيئه يونسكو قابلسن waxbarashada iyo dhaqanka iyo sayniska qaramada midoobay dawladdii markaa jirtay waxa jirta talay u soo jeedisay far lagu qoro af Soomaaliga maxaad arintaa wax xog aan naga siin kartaa aad ka haysaa UNICEF waxay UNESCO waxay يعني waxa la shaqeey UNESCO ninkii Gushan Jazeski iyo laba qof oo kale oo reer Yurub ah Stefan Strootsen iyo Joseph Tubiana waxay soo diyaariyeen far laatiin ah laakiin weli dawladdu ma dooran farta kadib markay shaqadii ay sameeyeen inuu dhowr qof oo kale way ka qayb qaateen shirarka iyo dooda ku saabsan farta marka bal wixii hadda halkan wax ku kaydsan oo xilliga inta aan la qorin la hirgelinin 40 sano ka hor farta Soomaaliga farihii kale oo sida faraha Carabiga ahaa ama tii Cusmaaniyada ama tii Androwiski iyo ay qoreen oo Laatiinka ku qorayd Muuse Galaal ama tii mid hadda la isticmaalo oo tii shira ahayd wax soo saaray oo macnaha iib ahaan ha noqoto ama wax lagu qoro ha noqoto oo halkan ku kaydsan oo faraha kala ah ama fartan hadda la isticmaalo shira oo ka horeeya xilligaas hirgelinta ma jiraan halkan yaala laga heli karo wala heli kara يعني جوش موسيقى الوحبان بيخورن وحي خورن مانسوين وين دابعين ولا أركي كرا يعني مقالة دو أي كقورن تسالة أحان مقالة دو بيخورن قبية دي جوبا اللي دو حي قمان بوحن بركها سيدي أي كقورن وفر كلا فرط الماء وفر يعني هدي لو فرصدو الاحتمال يدي إيو كنت يدي يعني لو فر ولا أركي كرا مثلا حتى إن كستو أي سمين H with a bar يعني لبا حق مرمى ولا استعمالي إنتان استعمالين حتى X وسمي شرق مركها ولا هلكرا وحي لقو قري فريحي قري لكن وح بدن يعني انت بدن وحلا حلا يعني وحي لدابعي لبي تورانتكي كدب اصلا الشيره maxaad ka haysaa oo ka horeeya 22kii maxaa ka yaala halkan aad ka haysaa waxa yaala yani iftiinka aqoonta wixii uu qoray iyo urin gabayo buu qoray gabayo iyo mahmaahdo iyo murti Soomaali ah dabadeedna wuxuu qoray mid sheeko buu qoray ruuxan la yiraahdo halkan mar waan isticmaalay markaan dhigo af Soomaaliga oo sheeka fiican oo ma isleedahay guddigii farta Soomaaliga ay dawladdii u xilsaartay 72kii in ay far doortaan farahaas Cusmaaniyadii Carabiga midaas ay Androwiski iyo qoreen fartan shire ma isleedahay guddigaas way ku saxraayeen inay doortaan fartii shire in la qaato mise xagga cilmi ahaan marka la fiiriyo luqadaha maxaad isleedahay waxaan ani haddii loo fiirsado farta shire waa farta anigu haddaan fiirsado faraha kale يعني وحن يعني وفرت ugu fiican waayo
يعني ولا قري كرا مثلا هذه لو فرصة يعني قلبك تايب رايتر يعني طبعا الاحتمالية دي لبي تدربات كي كمبيوتر بدل ما تشتري بدل ما أقول ولا تايب قريي مركها هديته هي مد طلياني لو قري أما مد إنجليز لو قري ولا استعمالي كرا printing presses ومد كست ولا استعمالي كرا ولاتين وحلا قدر إلها إمن كان هذه لو فرصة الكمبيوتر ردا في سومالي وحلا قري كرا أسكي the ASCII يعني لما بحنا إن وحلا قدر سيدا أف حوسة أو كلا أما أف يوروبا أما أف تمام أف أمهارك يعني فر جوني أهيلي so وي فرتا وسمي وهبي شرع و يعني أنا وحن وفر عاد وفعن يعني وأف سومالي ولا قراص للو عدية يعني wax kasta oo loo baahan yahay in la qoro waa lagu qori karaa fartiisa maxaad leedahay guulihii laga gaaray hirgelintii afka Soomaaliga iyo dhibaatooyinka ku xeeran maantay afka iyo farta Soomaaliga iyadoo burbur laxaad u yimid maxaad arintaas aad nooga sheegi kartaa ay kula tahay ase nin maaragtay cilmi baara oo afka Soomaaligana ku xeel dheer maadaama aad tahay guulihiina maxaad nooga tilmaami kartaa dhibaatooyinka ku xeeran iyo waxyaabaha maanta soo wajahayana maxaad ka tilmaami kartaa iyaga waxaan u maleeyaa in fartu waa wax fiican waa la isticmaali karaa af Soomaaliga inay sida inay isgaarsiinta ama inay gaar ahaan dhinaca kombiyuutarada waa la inay fartu waa wax لما هرانا وإمنك ما قرته مركا فرت لدورتي وفرت وجوش عن لو دوران لها أنا ملكست وحلقة هي تايب نوعي ماشي أم حاري يديبكوا تاي إني هلان أم حرف عاد سميسي أنا لقيه لين تايب والبعض وأساس مركا وحنو ملاني ووح إني هذا لو في صدى تاريخ ده في سوماليغا إني فرتا لجو قراء مانتا يعني طلب وين ولقاتي مركي رسمي أحان لهرجلي FARTA-SHIRE يعني وقت جاز كذب ولا سيدا بعي أما برجسيو إيو جريدة دو إيو بوجاج مركا وحوي يعني ووح عادو فعلا مركبة وايه مركا ودنبين anagoo aad gulageli doona wixii halkan yaala oo maxaan ku raadayay ama buugaag ama farihii hore ama farqiyada farahan u dhaxeeya iyo si aad dadka Soomaaliyeed ama maartay Soomaalida ahi oo asleeyahay fartani meel weyn bay maanta ugu jirtaa ay u arkaan ugana ogaadaan aqoon ahaan iyo cilmi ahaan ma jira wax naxwaha xagga naxwaha Soomaaliga ah oo ama buugaag la soo saaray oo aad haysid ama xilliyadaas masafarta un baa la qoray wax naxwo ah ma jiro naxwo waa la qoray يعني نحوحي سيدا كاكو كلا يعني كني سجال بقولي شنتي نحوها يعني وحبو كقولي يعني نحو في سوماليغا حتى شرع لفتيس وحو قري بوق نحو في سوماليغا أيوة دور خفوا كلا وحبي قرن نحو في سوماليغا يعني ولو قري في سومالي ولو قري في إنجليز أما في فرنسيس في إيطالياني حتى عفروش أنا قم قراني عفروش لكن وحبة لك قري نحو في سوماليغا دور أفعال لك قري علمي أهان واي waxaan filayaa hadda waa 40 guuladii hirgelintii farta Soomaaliga dad badani waxay ugu yeeraan 40 guuladii qoristii farta Soomaaliga ma la oran karaa waa 60 guuladii qoristii farta Soomaaliga iyo hirgelintii
أفرتن جوردي فرت الصومالية ساس مال أورانجنا واحد دي اللي قريستي فرت الصومالية waxay noqonaysaa in 22 kiilo qoray laakiin hadii 60 kiilo noqonayo oo fartii taas daabacnaydu ay taalay soo lama oran karo waa 60 guuradii hirgelintii qoridii farta Soomaaliga iyo 40 guuradii ونقول كره يعني هدي لو فرصة يعني قرست عف سوماليغا وتاريخ ده بعيد ده لكن هدي لو فرصة يعني رسمي أهم يعني وقت لهرجلي لكن طبعا يعني الشرع وحبو دابعي يعني ما قرانيو سند كي و سمي فرسي سلفت لكن كأوه رئيس هاي ساعدوا لحي لحتن كي وحبو دابعي واسداس هذا كان تصالح ما نقدر تشكر طب واقع هاي ها مركا يعني كان و افتينك أقونتا و يعني دابعي يعني فرتا وكوخري وفرتيسا ولحي لحدنكي لحتنكي ها مركا دور يعني وأفر يوتوبناد لا أفر يوتوبناد لا ولا بدي أسبوع مرة وسداس مركا هل كان يعني بوجا كوباد وحو كوخري يعني حروفته وكوخر عف سوماليغا باء جاء حاء دا رأي وحلم ده هل كان وح قرآن يعني دور كم ده يعني حروف عربية رواقص اللغة إيو تساليال سو بر وتم وتشيز إيو وحلم ده وبل وتوك وشر ودل قيل marka buug kasta uu soo saaro macnaha labadii asbuuc mar buu soo baxay weey macnaha buugani ilaa 60kii ilaa ay laga gaaray 72kii marka mid walbana alifbeetadii waa ugu horeysa si qofku halkan فريه وقبرته وايو يعني وقتigaas rasmi ahaan looma hirgelin marka isaga dadaalay inuu qof ahaan u hirgeliyo bay noqonaysaa wuxuu dhiirigelinayaa inay dadka inay akhriyaan afkooda hooyo marka kana waa goorma 66 asaguna tan waa 66kii kuwana maxay kuwan waa يعني و66kii 67kii السديدي اللي حتى كيما ملح ما قراني ولا إني شرسايون كلامك مركا وحويان وإمسا هذا وان كولو سدع فرشان اللي حصل ضوء كان نوع نحوها كان ما تنبوا قبيع ما أساق قري أساق قري وصلنا مركا سنك سيف عنه ما قراني يكون قرن يعني وشني لحتنكي وحل أورانكرا لحيو لحتنكي وبلابي إنه فرتي حدا واسداس مركا وحاد لجي يعني حدا وحاد كراسي إيش بيتعمله سليح لحتنكي وحال مركا سي الصبح صح واسداس واسحوي هل كاسة تفهمين نابا ما يصحوي مركا تنبو دابعي طبعا نحوه سوحو دابعي وإحنا من لح يتدباسنكي نحوها في سوماليا نحوها في سوماليا مركا تنبو بو خري وصحوي وتضاتي لحدي صحوي ومركا وحويان ما له مرة يورميس واحد عند الويسكي قالت دامن حلكن مال adag gali halkan yani library-ga source waa laga heli karaa ku jira alaabtan way ku jiraan qofkii doonaya uu kayd ku heli karaa halkan bay taalaa halkan bay yaalan way wanaagsan tahay ummadda Soomaaliyeed ogaadaan oo cidii doonaysa ay halkan waa sidaas ay ugu yimaadaan waa wanaagsan tahay waayahay tii Andrew Whiskey iyo fartiisi aanu bal tusaale ayaan ugu aragno iyo Muuse Galaal يعني تي هدي لا أركو بوغان وحي أوريين شيكوين شيكو حريون بي أوريين مركا وبوغ ويسو صارن حكمة سومالي ليراهدو وحا كوتشرا بوغان وحير كساب سن نحوها إيو شيكوين أف سومالي كوخران إيو يعني تفاسيش كسابسن نحو هايو أريب حنتايو وحي كسابسن دقنقا لغا
akhriyo akhriyo sheekooyinka marka waad arki kartaa in farta ay isticmaaleen way ka duwan tahay fartan tii shire ha yani xarfay sameeyeen ayagu waa sida yani masalan dhurwaa halkan da'da waad arki kartaa way jiidanta da hoos jiidan way ha صح iyo yani udan saan u jeedana maxay tahay وعمر ها مركو اودي يعني مركو عادي واسدا واسدا waxa yarka dhinaca dusha sare saaran dusha saaran ha xaaduduna waa sidii xaadu waxaad ka arki kartaa libaax مثلا halkan libaax waa h oo kor laga xariiqay waa sidaas markii waa kor ka xariijin kule waa sidaas libaax saas u qoran ما يدوي في أنت هلا قاعد because dadka in badan waxa la isku khaldaa fartan androwiski iyo muuse galaal iyo fartan shide way dhow yihiin laakiin yani waxa ku fiican farta shire waxa weeye waa in wax gooni ah lagama isticmaalo yani wuxuu qoray far aan waxba la gudayn xaraf gooni lagu darin oo xarfihii intaabka ku yaala ويا كوي كلا فريه هراء نكي نحوها قري كل 1950 iyo tan waa buugi uu dabacay Kirk marka isagu wuxuu ahaa nin Ingiriis ah oo ka tirsanaan jiray militariga Ingiriiska markay joogeen dhulka Soomaalida marka tan waxaad arki kartaa in yani let's find it. مثلا halkan waa kow laba saddex iyo xamada laba waa عادي saddex مثلا حدا laba xa buu qoray ma isticmaalin saddex d waad arki kartaa in shaqalka dheer yani lama arko marka laba ha waa xa meesha androwiski ay xariijin ku sameeyeen iyo muuse so meeshu ku qoray yani shire x ka dhiga asugu waa laba ha حتى يعني شبنايش لبرنامج تدوبا مثلا يعني مد قرح بو قري سديد وي سديد لكن شغل دير يعني أستان ير بو قرا مرمر شغل كدير لكن وبلو ما قرأت وبلو ها وكل سؤال بقول iyo shantii marka tan iyo midda muuse iyo androwiski wax far ma isu dhow yihiin masaxuuku waay may way ka duwan yihiin gaar ahaan hadii loo fiirsado shaqalada gaabani ku dhacday meesha asuu laba ha ka isticmaalay way kala duwan yihiin tii ninkii jarmalka ahaa oo 1900 ayada waa tan wuxuu maxaa la yiraahdaa ninkan magaciisa asaga magaciisu Leo Reinisch baa la yiraahdaa waa Jamal marka wuxuu qoray dhowr qoraalo oo yani waxay waa sheekooyin iyo yani wixii yani waa wax ku saabsan dhaqanka Soomaalida iyo noloshooda iyo xataa wax buu ka tarjumay Bible-ka iyo marka halkan masalan waxa la arki karaa wax yar ku saabsan ciyaaraha Soomaaliga so tansta Soomaali waa ciyaaraha Soomaalida Soomaalidu warkay markay sacabka waa sacabka garaacisme وعاب كولا ها waxay isu dhow yihiin ba waa sidaas astaantan waxa lagu isticmaalay afarbeedka afarbeed hadii lagu qori lahaa yani farta latin astaankaas waa caynka waxa lagu qoray taas lagu qoray sidaas darteed waa wala qaatay wala isticmaalay markii ciyaarta marka waa calaamad la yaqaan ba oo cayn ahaan loo isticmaalo kuwa afarbeedka yaqaan way yaqaanaan astaanta way yaqaanaan marka wuxuu yiri soddon gabdha ah soddon
Hagen tubanin ayaa reerkooda ka tagaan oo reer gabdho wanaagsani joogaan tagaan so marka waxay u baahan tahay inaad fahanto calaamadahan uu dusha ka saarsaarayo markaasaad akhrin kartaa may waa sax yani hadda loo yani fartan way ka duwan tahay tii موسى جلالي و أنجيجيفسكي طبعا way ka duwan tahay tii shire marka inta hadda halkan yaala aan hayno asaga ugu daaweyn waa 1900 inta halkan taala hadda intaas ka hor wax bala wala qoray حتى nin ingiriis wax maqaalad buu ka qoray si loogu qoray lahaa far carabi may way runtii waa warbixin aad u wanaagsan haddii aad wax yar maaragtay middan xarfahan qaada iyo dhacda iyo waxay kala duwan yihiin in yar haddaad dadka aad tusi kartidna way ficnaan lahayd si maaragtay halkaas sida hadda halka ay ugu sharaxan yihiin iyadoo ka waaweyn si ay dadku u fahmaan way ficnaan lahayd kolley hadda marta wuxuu geli doonaa in uu arrintaana tuso sida muuqatana halkan waxa weeye waa iftiinka aqoonta oo ka ugu daaweyn halkan hadda yaala 1966 uu yahay asagoo aan wax uu ka duwan yahay fartan maanta aan qorro aanay jirin isla markaana soo bixi jiray 14 la ah labadii asbuucba mar iyadoo qiimayaashu ay halka ku yaalaan marka diyaarad lagu dhex gadayo marka dibad lagu gadayo marka gudaha lagu gadayo oo muuqata in wax la iibinayo oo dal iyo dibadba lagu gadayo oo ahaa isla markaana ay tahay wax uu qof asagu inuu hirgeliyo uu isku dayay intaan la hirgelinin si sharci ah dawladdu ka hor in uu qof ahaan isku dayay inuu u hirgeliyo asagu mid walbana hikaadeedii ay afka hore ku wadatay marka waxaan oran karnaa 66kii intii ka soo wareegtay iyo hirgelintii 40 guuradii hirgelintii si sharci ah loo hirgeliyay waxaan xusaynaa haddana Martin wuxuu noogu soo gabagabayn doonaa inuu noo iftiimiyo bal xuruufahaas labadii farood u dambeysay waxa kaloo jiray fartii Cusmaaniyada oo iyadana aanu dib idin ka tusi doono macnaha qoraalkeedii iyo far Carabeed oo iyaduna farihii la qoray ah kamid ahaa kullu ayaguna dadku way arki doonaan marka dambe marka haddii loo fiirsado مثلا حدا يعني فرتا لا استعماله مانتا فرتي شري و اكس ولو قرا قوشي موسيقى سلاس بي كوخورين يعني مرمر وحل استعمالي لباحة سلاس وكذا عدا سداس انت بنا ولو خوري سدا علي وكذا علي يعني كر ولا خوري iyo da sidaas guush iyo muusikada sidaas bay qoreen marka tan waxa la arki karaa in xuruufta caadi ah waa lagu qori karaa af Soomaaliga sida ayna farti taas way ku fiican tahay ama typewriterska gaar ahaan maanta computerada hadii loo fiirsado af Soomaali waa lagu qori karaa ASCII ايميل markii la bilaabay in la isticmaalo waa Soomaali si fiican baa lagu qori karay laakiin hadday ahayd in wax astaan sida tan oo kale isticmaali lahaa way يعني كما فينا كمبيوتر طبعا منك والاستعمال كله لكن ما سهلنا تاس و تسالة يعني فرق ودحية فرمه مركا شغل كدير سوى عادي بقى شغل كدير شغل دير سدا جيل أو كلا سدا يعني أما يعني جوشي موسيقى إيو شر جامع أحمد إيو دوق فوق سدا ويقرر هاي وشغل دير لبا ولا استعماله هذه لو فرصة كوي هراء sida kaako kale sidaas may qorin waxay qaar waxay ku dareen astaan sida tan oo kale marka waa
لكن تم وي فعنتي وشغل دير ولا ديرايا يعني دكتور ما أدنى كاي مع شرفت لك يعني نوصل دويسي كل واحد بدنا أمد الصومالية ما أنتوا فائديسي وحي كلامنا دي كله وان شوي من دورنا هذه أدنى nasiibona horta maanta annagoo ku jirnaa xuska afartan guuradii hirgelinta af Soomaaliga ayaama waxaan la kulannay gabar Soomaaliyeed oo maantay qalin jabisay School of Oriental and African Studies magacaaga marka hore فاطمة داود حسن فاطمة داود aad baan u faraxsanahay in halkan kuula kulanno Faaduma maxaad baratay waanta waa qalin jabintaadii waxaan ku qalin jabiyay religion and history halkan saan ka warqabnaa af Soomaaliga lagu dhigaa Soomaaliga ma ka barata halkan Martin Orwin dhigo aniga baa Soomaali waa ka bartay xisooyina ka qaata asaga maxaa arday kale Soomaaliya halkan maxaa ma jiraan dhigata way jiraan ay ka baa Soomaaliga way bartaan ilaa mise arday baa hadda halkan ku jirta hadda ilaa 25 camal joogan ilaa 25 arday waa wax lagu farxo weey aad waayo maxaa dhalinyarada Soomaalida oo London jooga ama Europe jooga aad u sheegi lahayd in London University ay af Soomaaliga dhigto qayb kamid ah maxaad oran lahayd عادي لا مر والبابا هويوينكين أبوينكين في عربي بران مر والبابا مدرسة دوكسي جيان لكن أفكان هوينا والإلوبا خريطان كان بدنا دتك وقبضنا عيالك يعني لاتني جيراني وحس ما وذي قانا سو عادي لها هذا نصيب كان أنا هذا الشيء قاضو فرصة جانس أدو في عوها